Galcad Media News. Galcad Media News. kusoo dhawaada daawadayaal warka Galcad Media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooron dawladda Soomaaliya oo kismaayo ku celisay diyaarad waday dad badan ay soo masaafuriyeen ciidamada Axmed Madoobe Itoobiya oo loo ogaaday inay hubaynayso koox ka dagaalanta Soomaaliya dawladda oo fursad muhiim ah siisay xaaf iyo talaabo uu qaadayo ciidamada amisom suurta ku sameeyay mas'uul caan ah xilliga ay dhacaysa xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe oo loo ogaaday ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo sameystay ciidamo kumaandoos ah markii ugu horeysay cabsi badan oo soo wajahday qoomiyadaha Oromada iyo Canfarta koox weysan oo toogasho ka geystay Muqdisho midowga Yurub oo iska diiday codsi kaga yimid ra'iisul wasaaraha UK ee Iran oo sii deysay lamaanayaal u dhashay Australia oo loo haystay falal basaasnimo hagaag haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino taariikhdu waxa ay tahay 5 bisha 10aad 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. dawladda Itoobiya ayaa heshiis dhanka ciidanka ah la gashay xoogag hubeysan oo ka dagaalama deegaano ka tirsan maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle dawladda Itoobiya ayaa la sheegay inay ballan qaaday taageeridda maleeshiyaadka Westland ee ka dagaalama deegaanada gobolka Hiiraan horjoogaha kooxda Westland Mustafa Ali Aadan ayaa sheegay in dawladda Itoobiya u ballan qaaday taageerada dhanka hubka iyo arrimo kale waxa uu sheegay inay kulamo la qaateen saraakiil shisheeye oo u dhashay dalka Itoobiya kuwa u sameeyay ballan qaad cad oo la xiriira ka caawinta maleeshiyaadka Westland dhanka hubka kooxda Westland ayaa kamid ah sida maleeshiyaadka u abaabulan qaab qabiilka kuwa oo marar badan la dagaalama al-shabaab wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in magaaladaasi dowladda Soomaaliya ay dib ugu celisay shakhsiyaad dhowr oo ciidamada maamulka Jubbaland ay ka soo masaafuriyeen gudaha Kismaayo dadkan ayaa la sheegay inay ka soo degeen garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliyana amartay diyaaradii keentay dadkan inay ku celiso magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidan u sheegay raadiyo kulmiye mar uu la hadlay Kismaayo xaaladeedu waa xaalad iska murugsan waa meel shacabkii Soomaaliyeed lagu dhibaataynayo oo la xirxiraayo haba ugu daraato qoladan oo muxuu ahay markii hore xoog ku haysata ugu daraato dada la soo xirxiray oo waliba hadda intay soo masaafuriyeen qaarkood lagu celiyay dawladda federaalka tiri dil ama idinka idinta Allah dadkan deegaanka oo laga barakacinayo haday dilaan iyaga dambi ku tahay oo maxkamad lagu saaraya marka dadkii way soo barakacinayeen dawladda federaalka way ku sii celiyo ay soo wadaan ama inta airportka keena diyaarada loola hadlaa leeyahay soo qaadi kartid sababtoo soo qaadid waa celinay waxay dawladdu u sameynaysaa arintaas waxa weeye in dadka deegaankooda aan laga barakacin marka dambigu maalinta ka dambayso ayuu ka sii darayaa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa sheegay sidoo kale in Kismaayo ay ka socoto barakicin lagu hayo qabaa'il gaar ah taana aysan sii socon doonin marka waxaan kaliya ugu baaqay waxa weeye qolyaha waxaas biisiga ku ah inay joojiyaan arrin waay dadka carrada dhulka laga madamayn karo dadka deegaanka barakicis iyo tarxiirid iyo midna waxba looga maqaadayo adigu baa dambiga isku sii badanayo oo kaliya waxay u haystaan in Jubbaland ay dhisantay hadda laakiin iskeeda ay u burburtay Jubbaland maalin ma dhismin Jubbaland
dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidaan oo kale dhowr mar dad xilal ka haya maamulka Jubbaland iyo dadyow kale ka soo masaafriday magaalada Kismaayo iyagoo ku eedeynaya in xaalad amni darro ka wadaan magaalada Kismaayo oo ah caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland maalinba maalinta ka dambaysa waxaa ka sii daraysa xiisadii ka dhalatay doorashadii Kismaayo ka dhacday Axmed Madoobe oo ku soo baxay dowladana ay diiday doorashadaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa fursad muhiim ah siisay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo tilaabo u qaadayo warar hoos soo baxaya ayaa sheegaya in dhawaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu ku dhawaaqi doono guddiga xalinta khilaafaadka ee maamulkaasi guddigan ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa ilaa 12 qof sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila wareedii lagu kalsoon yahay u dhow madaxweynaha Galmudug madaxweyne Xaaf ayaa lagu soo waramayaa inuu arintan la tashiyo kala sameeyay madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyagoo u ogolaaday inuu ku dhawaaqo guddigaasi oo muhiim u ah dhismaha Galmudug oo mid ah sidoo kale guddiga ayaa waxa lagu talagalay inuu dhameeyo tabashooyinka ay qabaan beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dhawaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in hanaanka geedi socodka Galmudug uu la wareegay madaxweyne Xaaf kaasoo in muddo ah ishayeen dowladda federaalka Soomaaliya Galmudug waxaa hareeyay khilaafaad aan dhamaad lahayn balse dowladda dhexe ayaa hadda wada dadaal xoogan oo lagu dhisayo Galmudug loo dhan yahay ciidamada Amisom gaar ahaan kuwa dalka Djibouti ayaa is-horistaag ku sameeyay mas'uul caan ka ah gobolka Hiiraan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika Amisom gaar ahaan kuwa Djibouti ayaa lagu soo waramayaa inay maanta is-horistaag ku sameeyeen mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya Hirshabeelle ciidamada Djibouti ayaa garoonka Ugaas Khaliif u diiday in uu gudaha u galo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Maxamuud Cali Dhagagaab gudoomiyaha ayaa doonayay inuu ka qayb galo soo dhaweyn loo sameeyay wafdi heer sare oo ka socda Hirshabeelle oo saacadaha soo aadan ku wajahan magaalada Beledweyne Dhagagaab oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada Amisom ula dhaqmeen si aan wanaagsaneyn isla markaana uu ku xun yahay falkaasi sidoo kale waxa uu sheegay in dhacdadaas ay wax ka weydiin doonaan taliska ciidamada Amisom ee ka howlgala gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya wali ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada Djibouti oo ku aadan falkaasi laguna kacay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan xilliga ay dhacaysa xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa la ogaaday warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in toddobaadkan gudihiisa la qaban doono munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dib loogu doortay ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ila wareedyo xog ogaal ah ayaa inoo xaqiijiyay in maalinta Arbacada ah oo ku beegan 9 bisha Oktoobar la qaban doono xafladdaasi sidoo kale munaasabadda oo ah mid ballaaran ayaa la sheegay inay ka qayb galayaan mas'uuliyiin sarsare oo ay ku jiraan madax hore oo xilal uga soo qabtay dalka wararka ayaa intaas ku daraya in sidoo kale xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe ay ka qayb gali doonaan wafdi ka socda dhinaca maamulka Somaliland ammaanka Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay maanta iyadoo ciidamada booliska Jubbaland ay howlgal ballaaran ka wadaan gudaha magaaladaasi iyo xaafadaha ay ka kooban tahay Kismaayo 26 bishii hore ayaa lagu waday in la qabto munaasabadda caleemasaarka balse waxa ku yimid dib u dhac kadib markii dowladda federaalka ay xayiraad saartay Kismaayo lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo talaabada xigta oo ay qaadi doonto dowladda dhexe oo hore u qaadacday doorashadii dib loogu doortay Axmed Madoobe ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sameystay ciidamo kumandoos ah gobolka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in markii ugu horeysay uu dhistay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaan kumandooska ciidamadan ayaa waxay tiradooda gaaraysaa ilaa 250 askari kuwaas oo dhawaan tababar loo soo xiray sidoo kale ciidamadan ayaa qayb ka noqonaya ilaa 3000 oo askari oo kamid ah ciidamada cusub oo ku biiraya kuwa loo yaqaan Liu Police ee ismaamulkaasi sida aan xogta ku helnay ciidamadan kumandooska ayaa loogu talagalay inay ka jawaabaan xaaladaha degdega ah iyo difaacyada xuduudaha gobolka dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa ku soo beegay xilligan in ciidamo cusub uu dhisto gobolka Soomaalida Itoobiya arrintan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa iyadoo muddooyinkii u dambeeyay xasarado xoogan ay ka jireen gobolkaasi
markaana warkii dibadda midowga Yurub ayaa iska diiday inay aqbalaan codsi kaga yimid ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson kaasoo ah in toddobaadkan la qabto heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub warbaahinta Britain ayaa warisay in ra'iisul wasaare Johnson ay ka go'an tahay in midowga Yurub uu ka baxo marka la gaaro 31 bisha Oktoobar ugu dambeyntii Iran ayaa sii deysay lamaanayaal u dhashay Australia loo haystay falal basaasnimo wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa sheegtay in la sii daayay lamaanayaal u dhashay dalkaasi oo loo haystay falal basaasnimo muddo ku xirnaa Iran lamaanayaashan oo safar ku tagay wadamo badan waxna ku soo daabici jiray baraha bulshada ayaa xogtooda la waayay 3 bilood ka hor lamaanayaasha ayaa la xiray bishii Juulaay kadib markii diyaarad drones ah ay sawirro ka qaadeen goob military oo aan la ogeyn sida uu sheegay afhayeenka xeerbeegtada Iran tan iyo waqtigaasi wixii ka dambeeyay waxa lagu hayay xabsi ku yaala waqooyiga caasimadda Tehran wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa sheegtay in siideynta lamaanayaashan ay timid kadib wada hadallo miro dhal ah oo ay yeesheen mas'uuliyiinta Tehran iyo Australia daawadayaal waa naga inta warkaad kala socoteen Galcad Media Galcad Media Galcad Media Galcad Media Galcad Media